asxaabta ku soo dhawaada ogeysiis yar ama waxa weeyaan xog ku saabsan baasaboorka Itoobiya. Baasaboorka waxa la soo saaray marka qaabka loo qaato xogaayada qaababkii hore uu ka duwan yahay. Waxaana la sheegay baasaboorka qaadashadiisu in dhowr waxyaalood loo shardiyo ama loo shardinayaba. Kow marka ugu horeysa waxa qofku hadduu rabo baasaboor cusub oo Itoobiyaan ah kow aqoonsi qabale oo la cusboonaysiiyey iyo kaarka dhalashada ama shahaadada dhalashada iyo aqoonsiga qaranka ee la yiraahdo FIDA ama National ID. Marka baasaboor cusub hadda u baahan tahay maxaa laga baahan yahay saddex waxyaalood: aqoonsiga qabalayga oo la cusboonaysiiyey iyo shahaadada dhalashada iyo aqoonsiga qaranka ee National ID. Saddexdaas laga baahan yahay. Haddii baasaboorka aad cusboonaysiisanaysidna waxaa lagaaga baahan yahay oo uu ka dhacayo marka aad cusboonaysiisanaysid saddex waxyaalood baa loo baahan yahay: sawirka kurka ah iyo baasaboorka aad cusboonaysiisanaysid koobigiisii iyo aqoonsiga qaranka ee National ID ga la yiraahdo. Hadduu ka lumay waxaa loo baahan yahay aqoonsigii qabalayga ee mustawaqiyaga ahaa iyo sawir iyo waraaqda caddeynta booliska inuu ka lumay iyo aqoonsiga qaranka National ID ga. Qofku hadduu ka yar yahay da'da 18 sano oo waxa kale 18 sano hadduu ka yar yahay waxaa looga baahan yahay saddex waxyaalood: aqoonsiga waalidka iyo aqoonsiga waxa weeyaan waraaqda dhalashada iyo midka qaranka. Haddii aad da'daada saxaysid shahaadada dhalashada iyo sawirka iyo baasaboorka koobigiisa iyo aqoonsiga laga baahan yahay. Haddii magaca aad bedelaysid ama saxaysidna waxaa laga baahan yahay sawir, baasaboorka koobigiisa, waraaq maxkamadda ah iyo aqoonsiga National ID ga. Sida marka waa in loola socdaa